بسم الله الرحمن الرحيم. مقعيق وأحلام أحمد ديري. waxaa toddobaadkii hore inoo soo dhamaaday taariikh halgamaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ka koobneed 6 xalqadood. insha Allah isbuucan waxaynu bilaabi doonaa taariikhdii Sheekh Xasan Barsane. Imaam Sheekh Xasan Sheekh Nuur Sheekh Axmed oo loo yaqaan Sheekh Xasan Barsane waxa uu dhashay sanadkii markuu ahaa 1853 waxa uu ku dhashay tuulo loo yaqaan Ubaadi oo u jirta ilaa 68 kiiloomitir magaalada Jowhar gobolka Shabeellada Dhexe. hooyadiis waxaa la dhihi jiray Xaliime Hilowle. Sheekh Xasan waxa uu ka soo jeeday qoys Soomaali ah una saaxiib ah diinta Islaamka iyo fardaha. aabihii Sheekh Nuur waxa uu ahaa sheekh ka tirsan dariiqooyinka Raxmaaniya. Sheekh Xasan Barsane waxa uu ka dhex muuqday hogaamiyana u ahaa jamiicadiisa. waxa uu bartay Quraanka Kariimka isagoo yar kuna bartay tuulada Ubaadi. waxa uu barashada diinta Islaamka ku bilaabay isagoo aan wali qangaarin. markuu 20 jirsaday ayay isaga iyo aabihiisa isku raaceen sheekha inuu cilmiga sii kordhisto. sheekha wuxuu aaday meel walba uu ku tabayay inuu cilmi yaalo oo uu ka sii kordhisan karo. meelaha uu cilmiga u doontay dalka gudihiisa waxaa ka mid ahaa Matay aw Xasan oo ku taala Afgooye iyo Muqdisho. sheekhu kama uusan suulin inuu raadiyo cilmi isagoo markaana dayay dalka dibadiisa sida magaalada Marka uu tagay 2 jeer oo kala duwan. wuxuuna halkaasi ku soo gutay xajkii iyo cilmi uu raadinayay. wuxuu halkaasi ku maqnaa muddo ka badan 3 sanadood. sheekhu waxa uu halkaasi kula kulmay Sheekh Maxamed Saalax oo sheekh ay dariiqada Saalixiyada ka soo jeedo. Sheekh Xasan Barsane marka uu ku soo laabtay dalka waxaa dalka soo buuxdaafiyay gumeyste kala duwan oo markaasi iyo ka horba ku sugnaa dalka tan iyo intii ay dhacday qaybsashadii Afrika 1884. dalalka reer galbeedka oo ay ugu horeeyaan Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga iyo Boortaqiiska ayaa soo galay dalkeena hooyo ee Soomaaliya. sheekhu waxa uu ka biyo diiday inuu ku hoos noolaado gumeysto isagoo ka doorbiday inuu geeriyoodo isagoo dhowraya sharafta diinta iyo dalka. sheekha wuxuu dhex galay dadka isagoo jamciyay ciidan firadiisu lagu qiyaasay ilaa 20,000 ilaa 30,000. tababar dheer iyo wacyigelin kadib sheekha iyo ciidamadiisii waxay u kaceen difaaca dalka iyo diinta. waxayna la kulmeen hanjabaad iyo hajuum kaga imaanayay dhanka gumeystaha Talyaaniga oo iyagu markaasi haystay dhammaan koonfurta Soomaaliya. intaasna waxay ahayd qaybtii koowaad ee taariikh Sheekh Xasan Barsane. intaan ku kulmi doono toddobaadka xiga. nabadgelyo.